afar falalku waa erayo muujiya waxqabad kuwaas oo inta badan ka kooban qayb sal ah iyo qayb ku lifaaqan oo nadooc ah. salku waa qaybta muujisa macnaha aasaasiga ah ee falka, taas oo aan isbedbedelin. tusaale keen, dheerow, imow iyo wax la mid ah. dhanka kale, nadoocu waa qaybta isbedbedesha, taas oo salka ku biirisa macnayaal ku saabsan aminka iyo yeelaha. aminku waxa weeye waqtiga uu falku qabsoomayo oo guud ahaan u kala qaybsan 1 tagto, 2 joogto iyo 3 timaado. laakiin tagtadii 3 muuqaal oo kala duwan ayay leedahay. tagto waxay jirta fudud, keenay, tagto socota ama tagto socotay, keenayay, iyo tagto caadalay oo soo noqnoqotay oo fal la samayn jiray dhowr jeer wax ka badan tagtadii keeni jiray. joogtadu waa 2 muuqaal, waxa weeye tagto joogto, socota, keenayaa, waxaasan samaynayaa, qabanayaa, iyo keenaa oo ah joogto caadalay oo ah fal soo noqnoqdo maalin walba la sameeyo. dugsiga ayaan aadaa oo kale markaad leedahay aadaa, waxa weeye dugsiga waan ku noqnoqdayo de hal mar kaliya ma tago. waa 2 muuqaal iyo ugu dambeyntii maadadoo 1 muuqaal kaliya ka kooban oo ah mustaqbalka keeni doona, waxaasan samayn doonaa oo kale la mid ah. marka lifaaqyada madow, imika lifaaqyo xitaa ma ahe, mar bay lifaaq yihiin, marna waxa weeye erayo gooni u taagan sida doonaa iyo jiray. waxaa la isku yidhaahdaa nadooc. waxaasoo dhan waxaa la isku yidhaahdaa nadooc, oo maxay falkii keen ahaa ee salka ahaa ku biiriyeen macnayaal cusub oo aminka ama waqtiga ku saabsan. sidoo kale yeelaha, macnayaal nadoocyadu waxay keeni karaan inay yeelaha ka hadlaan qofka falka samaynaya. qofka falka samaynayna waxay nooga tilmaamaan sida aniga, isaga. markaad ka hadlaysa aniga iyo isaga waxaad raacinaysaa ay. cabdi iyo aniga ayaa waxaa keenay waad leedahay. maya, aniga ayaa waxaa keenay, cabdi ayaa waxaa keenay. iyada iyo adiga markaad ka hadlaysidna keentay baad leedahay. adiga ayaa waxaa ma taasaad keentay, haatan ma taasaad keentay baad leedahay. adiga marka laga hadlayo, iyada marka laga hadlayo Faaduma ayaa keentay. annaga, inaga marka laga hadlayo oo si guudana keennay baa la isticmaalayaa. idinka marka laga hadlayo keenteen baa la leeyahay. iyo ugu dambeyn iyaga marka laga hadlayo keeneen baa la leeyahay. marka nadoocyada la madoobeeyey iyaguna waxay ku saabsan yihiin oo waxay nooga tilmaamayaan yeelaha ama qofka falka sameynaya waxa uu yahay ayay nooga tilmaamayaan, lab, dhadig iyo waxyaabo la mid ah. falalku waxay u kala qaybsamaan 3 nooc, kuwaas oo kala ah falal dibkabayaal leh sida gal, kari, samee, baro, qabso iyo wax la mid ah. sida loo madoobeeyey tusaalayaashaas, mar falalka dibkabayaasha leh mar waxay ku dhamaanayaan shibane. waxay ku dhamaanayaan shibane ayay ku dhamaanayaan dhammaantood, sida keen oo kale, gal, la bay ku dhamaatay. marna waxay ku dhamaanayaan shaqallo sida i, o iyo so oo iswadata ayay ku dhamaanayaan. marka gal, kari, samee, baro, qabso iyo falalkaasoo dhan waxa weeye falalka dibkabayaasha leh. maxaa laga wadaa? gadaal ayay ka tarmaan oo ka qaataan nadoocyadooda dhamayska tiran leh. aad bayna u tiro badan yihiin oo af Soomaaliga 90% wax ka badan waxa laga yaabaa inay falalka dibkabayaasha leh ay wada yihiin. sidoo kale waxaa jira falal horkabayaal leh oo aad u tiro yar. waxaa ka mid ah imow iyo dheh, waan idhi, way tidhi, wuu yidhi. haddii lahjad kale oo guud oo caama la isticmaalo oon taa ahayna waxa weeye iri, yiri, tiri. marka halka hore ayay ka qaadanayaan waxa la yidhaahdo iska bedbedelayaan. sidaasaa loo yidhi falal horkabayaal leh. ugu dambeyn waxaa jira falal sifo sida dheerow, xirno oo kale. falalkani waxay ku xiran yihiin waxay kasoo jeedaan sifooyin dheer, ama waxay kasoo jeedaan magacyo sida xir, xirasho oo kale, xirnow. marka saasaa maaragtay falalkana loo sameeyey. falalku waxay leeyihiin habab ay u qabsoomaan oo kala ah: 1 hab ebyoon, tusaale xamar ayuu tagayaa, waa hab dhammaystiran oo ebyoon. 2 hab shardilay, shardi baa ku xidhan, waan dhoofi lahaa ee waan baaqday. dhoofi lahaadaas waxa weeye waa hab shardilay. 3 hab amar, tusaale
fur albaabka. Fur albaabka. Ereygaas aan ku bilaabay fur, isbedel kale iyo nooc kaleba aan lahayn, waxa weeye waa hab amar weeye. waana runtii habka aynu u isticmaalno haddaan dib ugu noqono ereyada falalka ah. Ereyada falalka ah si aynu salkooda u helno waxaa la adeegsadaa hab amarka qofka labaad ku socda, sida keen, fur, qaad, qabso, kari iyo wax lamid ah. saasaana tusaalayaasha u adeegsanay fara badan ee noocaasa. marka habkan amarka waxa weeye falkii oo horeeya iyo fur albaabka. war iga fur albaabka. marka meel walba geli kara laakiin isma bedelayo. waa salkiibaa mar walba taagan. okay, 4 hab talo. tusaale, ha qoro casharka. ha baa laga horeysiiyey falkii qoro ama qoritaanka ahaa, laakiin o baa la raaciyey. sidaas daraaddeed waa hab gooniya oo la yidhaahdo hab talo. hab dhiman baa jira oo tusaale in aad qortid waa hab dhiman. id buu ku dhammaanaya saad aragtid falkii ahaa qor. ereyada falalka ahi waxay taageeri karaan ereyo kale oo falal ah, noqonayaana falkaaliyayaal. tusaale, jir, kar, doon, leh, waxaasoo dhan waa falal, waana falkaaliyayaal bay noqonayaan marka qaarkood. falkaaliyayaashu waa 2. waa kow, kuwa lumiya macnahooda asalka ah. tusaale, casharkii baan seexan jiray. seexashadu waa fal. jiritaankaas la isticmaalay ayaa markaa falkaaliya u noqday, waan seexan jiray. marka waa kaas. iyo 2, kuwo aan luminin macnahooda asalka. tusaale, sacan waan lisi karaa. kartidaas aan karayo inaan samayn karo falkaa lisitaanka ah ayaa maaragtay macnihii ma lumin. sidaas daraaddeed labada qaybood bay falkaaliyaashu ka kooban yihiin. marka falkaaliyaashu iyaga laftigoodu way sii tarmaan oo isku dhigdhigi karaan, laakiin halkaas ayaanu kusoo koobaynaa. ugu dambeyntii, falalku waxay yeeshaan 2 qaab, kuwaas oo kala ah falgudbe oo ah falka sida tooska ah isugu xira yeelaha iyo la yeelaha. tusaale, fardowsa baa curiskan qortay. falka qoritaanka ah ee fardowsa samaysay iyo curisku toos ayay isugu xiran yihiin. inkastoo aynan ma aragtay weerteennu habkay u samaysan tahay in falka halka ugu dambeysa la dhigo. weer marka la qorayo falka halka ugu dambeysa ayaa la dhigaa. saasaa asala. laakiin mararka qaarkood dhexda waad gelin kartaa. fardowsa baa qortay curiskan baad odhan kartaa. waad arkaysaa inay ma aragtay fardowsa iyo curiskan ee ugu dambeeya marna ugu horeeyo magacyadu weerta, marna ay ugu dambeeyaan falkiina uu dhexda ku jiro oo toos isugu xirayo isagoo waxyaabo kale loo baahan. iyo 2, falmagudbe. falmagudbuhu waa fal aan si toosa isugu xiri karin yeelaha iyo la yeelaha ama magaca ku jira kaalinta yeelaha ama la yeelaha. tusaale, ciise baa dugsiga u ka lahay. u dheeraada baa la isticmaala. ciise baa dugsiga ka lahay lama odhan karo. sidii loo odhanayay fardowsa baa curiskan qortay oo 4 erey kaliya ka koobnaa markii falgudbaha la isticmaalayay. iminka falmagudbuhu waxaa la keenay xaraf ama erey dheeraada ayaa lasoo biiriyey. ciise baa dugsiga u ka lahay. markaas halkaas ayaynu kaga baxaynaa qeybta falalka.